markii qandho ku hayso ama hargab ku hayo jirka wuxuu la dagaaltamayaa viruskan soo galay difaaca jirka uu shaqeynayaa wuxuu rabaa viruska jirka soo galay inuu ka bixiyo markaas jirka pressure saaran hadaa training ku sii qasabto waa si xanuunsanaysaa oo waxa laga yaabaa wadnaha infection inuu kaaga dhaco asxaabta ayaantan waa isweynay labada week ee la soo dhaafay wax video ah masuubin sababtoo waa xanuunsanaa waxa ugu dhacay hargabka adduunka ugu xun waligii isma dheheenin hargab saan u xun ayaa jiro hargab dartiis ayaa week dhan sariir u saarnaa 4 maalmo isku xigto waxay haysay qandhadii haysay waxay gaartay ilaa 40 degrees waligii qandho intaas leeg ima qaban asxaabta saaxiibkii Marole Masar waaye soo dhawaada minikini waaye adiga walaashay walaalkay hada channelkan ku cusub tahay aniga magacayga waa Cabdinaasir waxaan suubiyaa video ku saabsan jirriska iyo raashinka video inta guda galin waxa si sharaf leh kaaga codsanaa videogan like na saartid comment ka soo bixisid asxaabtaadan u share gareysid hada wali subscribe hina fadlan subscribe leh free waaye waqtigan dadkeena dad badan oo arimahan xiiseynayaan ma jiraan marka adiga videogan fiirsanayo hada like saareen comment ka soo bixin asxaabtaada u share gareen qof kale ma suubinayso mahadsanid wiigi aan xanuunsanaa 2 jeer waxaan iska qaaday test waxaan u maleynayay corona inuu haayo 2 jeerba testiga negative uu ahaa dabcan PCR testiga 100% xaqiiqo ma ahan runtii hadda corona markuu igu dhacay saano dhan ima haynin corona markuu igu dhacay hal maalin uu ahay xataa qandho saayida ima qaban maalinta igu dhacay maalinta ka dambeysana waa caafimaad qabay qandhada waxa iga darnaa waxa iga tagay dhadhanka 2 week raashin dhan ma ii dhadhameenin week markaa xanuunsanaa waxoogaa hargabkii aan ka reestay week ku xigay xitaa raashinka ma ii dhadhameenin markaas waxaan ku qasbanaaday raashin diyeedka cuno ka baxsan inaan cuno hal isbuuc iyo bar waxaan ka maqnaa jiimka sababtoo ma rabin xanuunka mar labaad inuu igu soo laabto hadii isbuuc ama 2 isbuuc jiimka ka maqan tahay oo xanuun dartiis ugu maqan tahay taas macnaheedu ma ahan muqihii hore u soo dhisatay inay ka baaba'ayaan marka jiimka xanuun dartiis ugu maqan tahay week ama 2 week ha muqahaga way jilcaayaan laakiin taas macnaheedu ma ahan muqihii inay baaba'ooyaan waxa kaliya ay tahay waxa faaruq noqday glycogen storage-kaaga markaasna jirka uma baahnaanayo biyo badan inuu ceshto oo jirka biyaha ka baxaayo taasaa keenaysa murqahaaga inay jilcaan hadii xoogaa yar hargab ama saboor ku hayo markaas jiimka waa tagi kartaa si fiicanna waa u training gareyn kartaa laakiin haduu hargab xun ku hayo ama qandho ku hayso markaas jiimka hadaad tagtid waxaa laga yaabaa xanuunka ku hayo inuu kugu sii saayido fiiri markii qandho ku hayso ama hargab ku hayo jirka wuxuu la dagaaltamayaa viruskan soo galay difaaca jirka uu shaqeynayaa wuxuu rabaa viruska jirka soo galay inuu ka bixiyo markaas jirka pressure saaran hadaa training ku sii qasabto waa si xanuunsanaysaa oo waxa laga yaabaa wadnaha infection inuu kaaga dhaco marka duu hargab xun ku hayo hadii qandho ku hayso waxa fiican jirka inay siisid jaanis uu ku reesto 2 week hada jiimka ka maqan tahay ama week ka maqan tahay taas macnaheedu ma ahan muqiyaha dhisatay inay ka baaba'ayaan mideeda kale fadlan hadii aad qabtid xanuunada faafo jiimka tagin oo waxa laga yaabaa dadka kale jiimka joogo inaad ku daaratid hadii xanuun dartiis jiimka uga maqneed week ama 2 week waxa fiican marka ku soo laabato trainingkaaga inaad u bilaawdid si tartiib ah taxadirna leh waxa fiican inaad ku bilaawdid 150 awal miisaankii aad ku training gareyn jirtay fiiri hada jiimka ka maqneed xanuun dartiis week ama 2 week waxa markaas isdhimaayo awoodii awal ku training gareyn jirtay xoogaa hoose u dhacaysaa marka jiimka ku soo laabanaysid waxa fiican inaad ka bilaawdid 150 miisaanka awal ku training gareyn jirtay marka jiimka hore uga soo laabato xanuunki ka reesid hada jirka ku khasabtid inuu qaado miisaanku awal qaadi jiray markaas waxa iimaanayso xanuunki mar labaad inuu kugu soo laabto marka khaladkaas oo kale marnaba ha suubinin aniga week bar ayaa jiimka ka maqnaa markaan caafimaaday oo jiimka ku soo laabtay trainingkayga waxaan u bilaabay si taxadir leh oo tartiib ah waxaan ku bilaabay week u horeeyay inaan ku training gareeyo miisaanka awal ku training gareyn jiray 50% week dhan saasaan ku socday week labaad si taxadir leh tartiib ayaa waxaan u bilaabay inaan tijaabiyo miisaankan awal hore u qaadi jiray daraad waxaan tijaabiyay deadlift hargabku intuu igu dhicin ka hor deadlift waxaan ka suubin karay 200 kilo 4 ilaa 6 jeer laakiin daraad marka aan tijaabiyay 200 kilo hal mar inaan kor u soo qaado way igu adkeed meeshaasna waxa igaga soo baxday muddada xanuunsanaa xoogaa awoodeeda inay hoos u dhacday
marka mar walba waxaa fiican jirkaaga inaad dhageysatid haddaad dareemaysid xanuunkii ku haya 100% inaadan weli ka reysan markaas waxaa fiican jirka inaadan khasbin haddaa khasabtid xanuunkii ama labaad kugu soo laabanayo marka khaladkaas oo kale fadlan ha suubinin waa ku dareemaa 100% waa ku dareemaa haddaa tahay qof gymka muddo dheer aadayay hadda week ama 2 week ka maqan tahay waxaad dareemaysaa murqihii hore usoo dhisatay inay kaa baaba'ayaan laakiin taas xaqiiqa ma ahan adiga maskaxiyan saas dareemayo bes murqahaaga inay baaba'aan waqti dheer ay qaadanaysaa week ama 2 week murqa ma ku baaba'ayaan fiiri adoo xanuunsan hadda gymka isku khasabtid oo training gareysid waxaa laga yaabaa inaad saaid u sii xanuunsatid oo wadnaha infection kaaga dhaco markaasna gymka waxaa ka maqnaanaysaa dhowr bilood marka khaladkaas oo kale fadlan ha suubinin asxaabta fiidiyowga meeshan ku soo gabagabeynaa fiidiyowga inta ka bixin hadaa rabtid coach diyaaran ku ahay coach waa ku noqonaa hadaa rabtid miisaan iska ridid coach waa ku noqonaa hadaa rabtid murqaha inaad dhisatid coach waa ku noqonaa hadaa rabtid awoodaada inaad kor u qaadina coach waa ku noqonaa ani markaan ku dhahayo coach aan ku noqonaa macnaheedu ma ahan hal mar aan program ku soo dirayo meeshaas isku keen dambeynayso noloshaadan ka mid noqonaa motivation aan ku noqonaa waa kula xisaabtamaa wixii khaldanna ana saxaayo marka hadaa rabtid coach aan ku noqdo ila soo xiriir waxa igala soo xiriirtaa emailkan aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada fiidiyowga daawateen hadaa rabtiin wax fiidiyoo inaan kasoo suubiyo commentiga hoos igu soo qora mideeda kale ha iloobina fiidiyowga like na saartaan comment ka soo bixisiin asxaabtiina u share gareysaan hadaa wali subscribe hina fadlan subscribe leh aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan noo balanahay fiidiyowga ku xigo balanteena waa caafimaad iyo muruq